أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha ku xiran kanaalka xasanaad, mar kale soo dhowaada. insha allah waxaa idin wadaa hal xadiisado alla raali ka noqdo oo aan insha allah idinla wadaagi doono. dhammaan fadlan, haddii aadan ka mid ahayn asxaabta ku xiran kanaalkan, waxaan ka codsanaynaa inaad kusoo birtid kanaalkan oo aad naga mid naqatid. ilaahi subxana wa tacaala ha ka abaalmaryo. sii fidinta khayrkane waa shaqada koowaad ee aan isla qabanayno aniga iyo adiga dhammaanteen insha allah. siina gaarsiiya asxaabtaada kale aa ku og tahay inay khayrka jecel yihiin, ayagana hasii fidiyaan, la sii wadaag. maanta waxaa idin wadaa hal xadiis runtii oo aad iyo aad u muhiim ah. can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaal ina allaha yagaar wagayrat allahi an ya'tiya almu'minu maa xarama allah. mutafaqun calayh. xadiiskan waa bukhaari iyo muslim mutafaq. abi hureyra ayaana warinayo. rasuulka sala allahu alay slam wuxuu leeyahay, alle wou qiiroodaa, ilaahi subxaanahu watacaala wou qiiroodaa oo mataqaanaa ma jeclaysto ilaahi subxana wa tacaala an ya'tiya almu'minu maa xarama allah, in mu'minka la yimaado wax ilaahay ka xaaraantinimiyey allah wuu ka qiiroodaa. ilaahay wou qiiroodaa. qiirada kolley af soomaaliga waa maaragtay qofka wuxuu jeclayn qofka markaa samaysid ayaa qiiro la dhahaa, ama ka maseera qofka oo mataqaanaa qiiro asalka saas waa. marka wagayratullah, alla qiiradiis way ka duwantaha dadke. laysa ka midlihi shay. dadka qiiradooda waxyaaba kale adduunyo ama waxa dantiisa ugu jirto, marka qofka waa inuu ka qiirooda laga yaabaa. laakiin tan ilaahay waxaa weeye an ya'tiya almu'minu maa xarama allah. mu'minka marka uu la yimaado wax alle ka xaaraantinimiyey, markaas ayuu ilahi subxana wataala qiiroodaa. ilaahi subxana wa tacaala wuuna abuuray, wuuna arsaaqay, wax walba u bahannahay ayuuna siiyey. kadib wuxuu abuuray janno iyo mataqaana naar oo ugu talagala addoommadiisa inuu kala maaragtay u kala xaliyo. xaggaas markii ay tagaan qiyaamaha loo kala xaliyo, ninkii janno shaqaystay janno ilaahi subxana wa taala geeyey, ninkii naar shaqaystay naar la geeyey. haddana saas ay tahay, ilaahi subxana wa tacaala marnaba ma jecla inaan asiga ku caasino oo aan nafteenna dulmino kadibna cadaabkiisa aan tagno. marnaba ilahi subxana wa taala raalli kama aha, marnaba kuma farxayo. ilahi subxana wa taala wuxuu jecel yahay in aan wanaagsanaano ayuu allah jecel yahay. haddii aan wanaagsanaano annaga dan noo tahay, haddii aan xumaanon annaga ayaa khasaara noo tahay. saasay tahay, ilaahi subxana wa tacaala markaa xumaan la imaano oo nafteenna wax dulmi ah ku sameyno oo annaga dadka a dulmino, alla subxana wa taala waxba ma aanan yeelin asiga. saasay tahay, wuu ka caroonaya. sababtoo ah oo u diidaya waxay tahay in cadaabka galna ma rabi ilahi subxana wa tacaala. wuxuu rabiyaa inaan jannada tagno. ilahi subxana wa tacaala wuxuu rabiyaa inuu na geeyo raxmadiisa iyo mataqaanaa jannatu firdows alaclaa. annagana waxaa rabnaa inaan waxaa rabna sameyno oo ilahi subxana wa taala caradiisa a dalbanno oo cadaabkiisa a dalbana rabnaa. ilahi subxana wa tacaala wuxuu naga yeeraya janno, annagana waxaa u ordaynaa naar. marka waa wax macquul ahayn runtii ilahi subxana wa tacaala oo mataqaanaa boqorka adduunyadii aakhire ah inuu ka caroodo xumaan inaan sameyno. sababtoo ah xumaanta annaga ay dhib noo keenaysaa. bini aadamka waa daciif, ma yaqaano wax walba oo dantiisa ku jirto. alla laakiin danteena ayuu garanaya, asaana abuuray, asigaa qalbiga iyo niyaddeena waxa noogu jiro wax walba garanaya. sababtoo asigaana leh annaga dhan, wuuna ogyaha marka inaan dhanka xun u soconno. saasay tahay oo naga waaninaya ilahi subxana wa tacaala oo leeyahay ilahi subxana wa tacaala wuu ka qiiroodaa inaan sameyno wuxuu naga xaaraantinimey. marka allah naga dhigo kuwa alle subxana wa tacaala aamino, sida kalsoonida ah iimaanka looga helo, axaadiista rasuulkana ku dhaqanta, ee aanan kasoo qaadin sida warqadaha wararka oo kale, inaad joornal warar akhrisatid oo kadibna mataqaanaa ka socotid oo kale. maya, xadiiska markaa maqashid waxaa la rabaa inuu saameyn kugu reebo. aayadda qur-aanka sidoo kale ilahi subxana wa tacaala iyo rasuulkiisa hadalkooda markaa maqashid waa inay saameyn kugu yeeshtaan
oo aad mataqaanaa isku daydid intaad kari kartid inaad ku dhaqantid dadka walaalahaana aad sii gaarsiisid oo u sheegtid waxa nabiga calay salaam leeyahay wax alla leeyahay inaad u sheegtid marka ilahi subxana wataala marnaba raalli kama inaan caasino oo nafteena dulmino haddii aan caasino cadaabunu abuurtay saasay tahay haddana ma rabi cadaabkaas inaan galno ilahi subxana watacaala rasuulkana saasuu ahaayo saxaabada iyo annagoo dardaarankood nooga tagay waxau ahay inaan mar walba wanaagga ku dadalno cadaabka ilahi subxana watacaala aan ka sikanno oo ka cararno jannadiisana u dhowaano laakiin annaga bini aadan aan lahaa waxaa waa gadaalgadaal u shaqeynaa meesha nagala reebaa meelaa ahayn meesha naloo diraa meelaa ahayn aa aadnaa inta diina loo diro gadaal oo laabanaa hadii gadaal naloo diro intaa aadnaa macnaha waa bini aadanka waxa ilaahay uu ku abuuro waayo laakiin dadaalaa la rabaa qofka inuu dadaalo naftiisa mataqaanaa hormariyo naftaada wax walba wanaagsan waa la jeclaa lahayd maanta adduunyada hadii lagu dhaho madaxweynaha kaa xanaaqaayo saan haddaa samaysid madaxweyniha ku jeclaahaayo haddii lagu dhaho maanta waa kala garanaysaa farqiga u dhexeeya runtii sidoo markaas wanaagsan ee aan lagugu ciqaabaynin mataqaanaa abaalmarinta iyo darajooyinka ku helaysid samayn lahayd marka alle subxana watacaala bal ka waran laysa kamidlihi shay wax lamid aysan jirin oo mataqana asiga ku abuuray asiga ku keena adduunyadan caafimaadka iyo waxa hadda indhahaada ku fiirsanaysid muuqaalkan dhegaha ku maqlaysid muuqaalkan allah ku siiyey subxaana watacaala allahaas ayaa haddana kuu ogoleen inaad cadaabkiisa geshid wuxuu kuugu diyaariyey ama adduunka ugu keenay inaad asiga caabudid adduunka waxaa lagu keenaba oo meeshaan lagu keena caafimaadka iyo cimriga lagu siiyey waxaa waaye inaad alle subxana watacaala ku garatid caqligaaga oo mataqaanaa cimrigaaga intaa noosha alla caabudid aa la rabaa maalinkaa dhimatidna ilahi subxana watacaala abaalmarinta uu kuu diyaariyey halkaas aa ku heshid laakiin adduunyadii ka waran hadduu ilahi subxana wataala wuxuu kaa reebay aadan ka haraynin hadduu wuxuu ku faray mataqaanaa aadan fartoonin oo qaadanaynin ka waran dhibka kaasoo gaari karo adiguu kusoo gaara dhibka adiguu ilahi subxana wataala dhibka kaaga digaya rabbigan aaduu noo jecel yahay annagana aan jeclaano nabi maxamed sal lla ly salam hadalkiisana aan qaadanno waayo ilahi subxana watacaala ayaa usoo waxyoonayay wuxuu asiga iska dhahaya maysan ahayn hadalka ilahi subxana wataala ayaa usoo waxyoonayay sidaasuu nabiga alay salaam noogu soo gudbinayay marka waxaa rabnaa insha allah inaan qaadanno xadiid walba oo kamid ah xadiista rasuulka waajibay nagu tahay inaan ku dhaqanno mataqaana oo dadkana sii gaarsiino nabiga alay salaam xadiidkiisa waa inuusan nolol mid naqanin hadallada dadka kale hadallada qof caadiga ku dhaho ama qof kula balamo nabiga alay salam ka sarreeya nabiga alay salam ka weyn marka nabiga alay salam hadalkiisa aan qaadanno aanan ku dhaqanno dadka walaalehen ah ee kheyrka jecelne aan sii gaarsiino insha allah fadlan kanaalkan kusoo biir ee kheyrka nagala qayb qaado siina faafi intaana kusoo koobaya insha allah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu